madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay inaysan wax isbedel ku iman ballanqaadkiisii ku aadanaa amniga Israa'iil hase yeeshee waxa uu ku adkaystay in xal laba dal ah oo ku jira dal Falastiin leedahay uu yahay jawaabta kaliya dagaalka. Biden ayaa ka hadlay aqalka cad kadib markii heshiis xabad joojin ay gaadheen Xamaas iyo Israa'iil kaas oo ka dambeeyay 11 maalmood oo dagaal ay kuna dhinteen in ka badan 200 oo qof badankooduna shacabka reer Falastiin. Biden ayaa hoos u dhigay fikirkiisa la xiriira dagaalka Gaza oo khilaaf ka dhex abuuray xisbiga dimuqraadiga kadib markii ay ku tobaneeyay kamida Biden ku khilaafeen waxay ugu yeedheen diblomaasiyad jilicsan oo ka dhahna Israa'iil oo xulufo la yihiin kadib markii uu si shaacsan u dalbaday xabad joojin Mr. Biden. Xisbigaygu weli waxa uu taageersan yahay Israa'iil ayuu yiri Mr. Biden. Arrinta aan kala cadeeyay arrintaas ilaa gobolku uu si cad u garowsado xaqa Israa'iil u leedahay inuu jiro dal madax bannaan oo Yuhuuddu leedahay ma jiri doonto nabad ayuu yiri Mr. Biden. xabad joojinta Gaza waxa ka shaqeeyay Masar kadib markii ay Mareykanka ku cadaadiyeen inay Israa'iil ka qaboojiso ololaha Gaza. dhinaca kalena xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa lagu wadaa inuu toddobaadkan booqdo gobolka si uu uga xaajoodo dadaalada dib u soo kabashada iyo wada shaqaynta ku aadan mustaqbal u wada wanaagsan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.